أرجعنا أنا ديارتي. بس اسمع. عدول. والله إلا هذا. ديارتي. أوكي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. بعض الصحافة وما سنتي وقعدوا الجارنا إلى الجاهلية. وحال سعت بدونيها إنه دور جار شلون. وتكون كذا في سفر في وجهنا اسماعيل. يصير كل عام على أساس لو الدنيا وشيء عادي أنا بكون هاي كان أنا وحنا نسمع قفص الصومال والصومالية إنه حق لي هاي إنه قصة ماشى أو دون مركا حنا ورجعنا نسيب درو إن دولة الشرع موجودة وقت إذا الشرع جاي يجلس مركا taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxaan kama bixin waxaan arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dawladdu si bareer ah oo la kaca u samaysay xaqna u lahayn intaas marka halkaas rabaa inaan ugu waxaan rabaa wax yar diban aan kugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timid waxaa ogtiin annaga لكن يا حبيبي قاعدين دولة على صوت بس دولة ما حلوه بس constitution شرع بس سيه هذا هو الشغال كلام سيه ضد كالمثال يعني هو أدين كلام دولة الكواد على صوت بس دولة على عد عبد الشيخ كتجوال دولة حديثه دولة محمد سياد الرئيس أعتقد كده دولة من الدولة كبيرة 20 سنة صار لنا وقت طويل laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku dayo badan la sameeyay dawladda Caalamiga la soo dhisay badan la isku dayay laakiin ma shaqeyn dawladnimada hadda socota taariikhda waxay ka soo bilaabanaysaa laba dhig anaga waxaan wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax ka qaybsadaan qabiil لكن الجديد الأول وحياة دكتور الجدان حركة سياسية هي دولة مدنية وهو دكتور شر الصومال ولي أنت سبحان الله وجرا بعد جوف ماشى لسوق على مكة لواتن كي بقى صوب العاب لواتن لواتن كي يحل عن لواتن سجالة زمان يعني أنت ما دخلنا السوق الشيء هي أنت بروساس الصومال هذا وقت إلى كم هالسنة تاريخ راس قيمة كأها يعني جا يدور بدنا كم ذا وجدد أبوه إنه حال سارة دتك الصومالي ده حيرانه نظام يبغى يدورتين دولة يبغى إليه هو دكتور حال سعودين وحال سمين هاي تنازلات فرقنا وحال سمين هاي وحيد أنا هم ضد الصومالي إلا حقنا إنه قفل بوصومالي أو دريمي كرا شرفت دولة المدينة وكش قناة أما مسؤول هذا أما قف عادي هذا أحوال الحق يجي وإحنا بعد ما يجي مرحلة هذا اللي جوه مرحلة عرفنا ذلك إنه هذا أحزاب سياسية غير بالفور بوينت فايف قصته أي هذا عندك أفكار سياسية تكون دولة يعني سلوك مثلاً ديجان يا حبيبي ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo wixii ay ballan qaadeen inay fuliyaan dawladdan hadda jirta madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne Xasan Sheekh ka horreeyay
isagoo awoodii haysta oo ciidamadii xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta wuxuu oggolaaday inuu yidhaahdo waa layga guulaystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka. taas maxaa bays u ah? waxaa bays u ah dastuurka. dastuurka waxuu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qabanqaabiyo doorasho ciddii ku guulaysta xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo karaa. madaxweyne xasan sheekh waxaa ka horreysay dowladdaydii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato. sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqyo badan maro waa laga guulaystay madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyo. waayo waxaasoo dhan ay u dhacay su-aasha muhiimka taas haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay xasan waa jecel yahay, aniga waa jecelahay, kuwa kale waa jecel yihiin, laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka. haddaan meeshaas xoogaa yara ka fangeliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin, marka waa layga filinaya inaan xukunka ku dhow. marka aan doorashada samaynayana talooyin badan waxay usoo gaarayaan, war waxaan dib isaga reexa baashaan hore u soco, waxaan dhahay ma sameynaa. laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux Maraykan ka yimid, ruux ka yimid Yurub oo 30 sano soo jooga inuu maalin walba sharciga ka rabo. arrintaas arrin la aqbali kara ma aha. ninkii iska fadhiyey ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyey la yidhi ku soo dhawo waa lagu doortay ee garbaha laga istaagay, maanta lagama aqbalayo inuu yidhaahdo garoonka koondhe. waxaan rabaa warkayga ma caddaa. ani garoonka waa layga reebi karaa, laakiin hal shay layga reebi karaa, waxaa layga reeba sharciga. sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. waxaan rabaa aan socdo qaraabsalaan aan socdo, siyaasadda aan socdo, islaan ari raacaysa haddii wada kala iyo madan ku qanacay inaan tii tahay. waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa. dowladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugaynay inay ka garaabaan khaladkooda. maxaa yeelay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali laga galay. waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cuna qabatay. waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligood doonaan safraan, xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaanaa Muqdisho yimaadaan loo tago. marka waxaan leenahay waa sharci darro. ma rabo aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo isku haya inay aad u dhex galo, laakiin hal shay aan rabaa inaan sheego. Jubbaland marka doorashada laga sameynayo andhaho Puntland marka doorashada laga sameynayo doorashada yaa qaban qaabiyo, dowladda dhexe ma qaban qaabiso mise reer Puntland qaban qaabiyo? yaa iga jawaab kara. maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland? ii sheeg. labadooda sharciga u oggolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan. doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa, laakiin labada maamul laba doorasho ay qaban qaabiyeen. mid madaxweynuhu waa ka qayb galay, waa tii Puntland, midna waa diiday. su-aasha labaad waxa waaye xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habka. maxaa ka soo bixi kara tilaabaha qaldan oo dowladdu ay qaadayso? waxaa rabaa marka inaan u laabto. dowladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamo. cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha, waa dowladda. sharciga lagu doorto haddii ixtiraami wayso macnaheeda waxa waaye dowlad ma jirto. inta jeer dowladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha. haddaa fiirisid mu'asasaadka dowladda ama institutionada dowladda ama hay-adaha dowladda ma qabtaan wixii loogu talagalay. waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka. baarlamaanka maanta awood ma uu leeyahay? su-aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliya. inuu intuu fadhiisto si dimuqraadi u shiro, u doodo oo wax ay la taa soo saar awood ma uu leeyahay? maya. sax waay. okay, waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn ah. maxaa caddaynaya arrintaas sheegaya? waxaa caddaynaya guddoomiye Jawaari
iyo dowladdu asqatay in baarlamaanka la koontaroolo darteeda jawaab loo riday saas ma ogtiin mise uma ogidin sax waa haddana dowladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dowladdan waa dowladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dowladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabo inay dhamaystiraan ma dhamaystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada muqdisho waa ogtid iyo dalka hore meesha uu joogo shalay waxaan helnaa xog ciidamada qaranka ka mid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miya aragtay dowladda waxaa laga raba inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha u maraayo magaalada dhan waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi korana ma jiro soo dadkaan yay u adeegayaan waxaan isweydiin cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasi aa tahay sharcigaa ku ogolaaday aan hogaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhiso haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axzaab ha noqdaan ama ha noqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir leh oo xura ma jiro soo beentay bal cad waa kaasi sheegay maamul goboleed xur ah oo go-aankiisa qaada kara oo dadkiisa matela oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland isma hayaan puntland isma hayaan galmudugna waxa ka socdaa waa ogni hirshabeelle waxa ka socdaa waa ogni baa iyo bakool wixii ka dhaca waa ogni yaa loo shaqeynaa dowladda ayay u shaqeynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladdu inuu jilcan yahay dhow yahay mararka qaar la yidhaha xataa heshiisaa dhex mar ma aha si aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaayo maxaa yeele waqti a iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayey kuwaa ku dhaawacmay kuwaa xoolahooda ku waayey yacni inay degdeg ama si khalada wax u halaaban ma rabo marka adiga waxaan ku jiray dadka dhahaya dowladda afarteeda sanaa loo dhaafo okay afarteeda sanaa loo dhaafo haddaysanba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno soo wada geli karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa marka maxkamaduhu furayaan sax wala la 15 sano dowladdii ku meel gaarka ah aan hogaaminayay waxay ku guuleysatay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo dego garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ogolaa waayo cidda loo ogolaa kara bal ii sheega بسؤال ومحان أسعد أنا وحان أسعد لك اسمعي دولة وحي اللي يلاك ارتعني تراب وحاسن كقبنا عنا هال النجاها وحاسن سمين حرب عن نقطة مهمة أنا أقول ما أكتين هرتا دولة يعني شرع أنا أوصينا وحقوضع دولة هي مواطنين تشرع أوصينا شرع دولة وحسينها شرع أول هي واجب أنا كنا حسينا أود هي واجب كمواطن هدو شرع يقول لك إسماعيل أنا إسماعيل مال قال مع صومالي هدو يقول لي دولتنا وأقول لي بران كاسدي فرماجة وكبحي كرو حق له أنا وكبحي كيف ما أنتم لنا هدو شرع يدي ده أسجن أود أنا وحنا ربع أنا أفهم وحل أسقوها يا شرعي أفرت سنة مدحينا كم هذا الناس أنا وأقولنا لكن حوس سمينا مدحينا يقول لي اسمحك شقينا waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol haday ka leexdaan marka maxaa dhici kara dowladnimada inay maxaa yeelay dalkan weli heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogyahay adag oo dowladnimada Soomaaliya bees u noqdo ma jiraan ogtii sida u soo wadnay waxa lagu soo waday
وتن بفير وتن فير هدي نقط أنا اللي دورتي وحن ربان سمينا waxay furaysaa khad aan wanaagsan dawlad marka waxaan rabaa inay ka joogo meesha ku soo sharciga hareer maraysan ka joogta waxa lagu ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaan asagoo hotelkan aan iga fogeyn degan ama xafiyad lagu wareejiyay musa beente maxaa loogu wareejiyay xoog ma loogu wareejiyay xasan sheekh isla hotelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharciga qofkii lagu doortay dad ixtiraami waa ixtiraami sharci ma laha danna Soomaaliya hadday marka dawladdu waajibkeeda garawaysa ka gaabis hadday sharciga burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka ummado badan oo dhaqaale ku baxshayna lahayd annaga waxaan u dagaalameynay oo u tanaasulaynay waxay dawladda Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha uu socdo haddaan shabaab lala dirirayn oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof kale oo san jirin waxa dhala kara waa dhici karta annaga ma rabno intaan iska aamusno markay waxa laabanayna indhaha taagan dowladnimadana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxaa laga maarmaan in intay isu yimaadaan kala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiir waxaan ka wax ka weyn ahlaysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaan si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culimada diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliya aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadiyo maxay la sharci darradan si u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan baxay meeshii rabaan aadaan caruurtooda aadaan dadka aan meel ay aadaan lahayn waa dadkaan iyo dadka lamid waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan umaleynaa waqtiga aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga caddaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladdeena kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo xusuus ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysan xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogolno dariiqada ku socda waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid Soomaalina isu timaado mahadsanid wasalaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan umaleynaa su'aalo mubahnidina marka waa salaama سؤال أو بهنا هاي وعلى هذا مؤمن وجوبجو كتر سنة مدح وينه ما واحد سؤال يرى مجران ور أنت اللي شايفه نكون فلنت أنت نبركيستا وأنا بديها جانس إن شاء الله السلام عليكم